dul qaadanaynin haddii shirka taleex ka socda laga duwo majarihiisa amaba ujeedooyinkiisa shir jiray in shirka taleex ay ka hadlaysay taasi oo xukuumadda Soomaaliland buu yiri aanay marnaba is hortaageen beel kasta ama cid kasta oo arrimahooda ka hadlaysa hasaatee wasiirku waxa uu intaas ku daray in shirka ay ku sii qulqulayaan rag siyaasiyiin oo raba buu yiri in ay shirka beesha ay majara habaabiyaan taasi oo aanay Soomaaliland marnaba aqbalaynin waxana uu yiri taleex waxa la yiri waxa ku arrinsanaysa beel kamida beelaha reer Soomaaliland beel kamida beelaha reer Soomaaliland beeshaasi danaheedii haddii ay ka arrinsanayso la hor joogsan maayo sida beelaha kale ee reer Soomaaliland ba ay danahooda gaarka uga arrinsadaan aynu dhaqanka uga arrinsanno ee aynu wixii aynu tabanayno uga arrinsanno ee dareenkeena aynu ku muujino iyagana dhiban laakiin haddii ay rag qaran duwin u yimaadaan ama calan Soomaaliyeed ay soo wadaan waa tan sheegayna ee aanu ka hortagayno ee aanu difaacayno ee aanu ilaalinayno wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Nuur Caraale Duur oo ka jawaabayay talaabada ay xukuumadda Soomaaliland ay arintan ka qaadanayso waxa uu yiri talaabo kasta oo qaadi karo ayay Soomaaliland qaadi kartaa taagtaro nama dhigayso laakiin tulaala jira taagtaro Soomaaliland dhigi mayso de taleex maaha deegaanka Soomaaliland meel ka baxsan waa meel ay gaari karaan maamulka Soomaaliland horena u gaareen imkana ay gaareen marka tulaala nagu jiro beel tiri waa shirayna inaanu sii deyno laakiin haddii ay muuqato in talaabooyin khatar ku ay Soomaaliland ay kaga soo baxayaan shirka waa tan ka digaynayno leenay ka daaya hadday taasi timaadana waxaanu qaadaynaa talaabo kasta oo qaran xaq u leeyahay oo uu xusay in sidii horeba uu madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo oo ugu ballan qaaday ay Soomaaliland markasta soo dhaweynayso cid kasta oo qabta tabashooyin siyaasadeed iyo kuwa u gaara intaba iyo waliba sidoo kale gobashii madaxweynaha Soomaaliland uu hore u fidiyay ee nabadeed dawladda intaas waxaan ku soo koobaynaa shirkaasi qaatimatu haatana waxaad ku soo dhawaataan ayadoo aan filayo inaan dhaxtaar uga dhigi doono inta shirku barnaamijku u socdo gabay waa kan hawadiyo hankalleelihiyo haybadays wadaaye hiigaa wuxuu kaashadaa himilo weeyaane ruuxan ishubin waa ku ceeb inuu hadaaqaaye hamibaan ku fognahay beryahan halalla waa gow-een hazaawiyo sheekada layga helayaaye hoosu foror iyo aamusnan bayga soo hadhaaye hoosu foror iyo aamusnan bayga soo hadhaaye onkod heego daadiinayiyo halablihii arka ama jibin habeenimo dhacdiyo gorayhi goraya ama hawsar yool baadhuhu hagayo kartiiste ama hawsar yool baadhuhu hagayo kartiiste sidoodii baan u hiinraagayaa hibasha awgeede hiirtaayo iyo qoomamo baan la harjadayaaye higadan la maqal baa qalbigo ila hugmaayaaye higadan la maqal baa qalbigo ila hugmaayaaye raggii hore hal raaciisi iyo sidii la ii haystay habkaan rabay hanaankan wataye ku hindisoonayey kuwa hogay iyo neytiya geliyay haadaane hiirkii kala daasatiyo hooga labadiiba hoggaankiina kala goosatayo huriinba meelgaysay hilba tiriri mayaan caqleena kuma heshiiyaane amar wacashadii waxaa bedelay qaab hinaasiyaahe hulahoodii la ogaa inaan hadaf u taagnayne
وهجر دحدو ذا عسرق أرحض هايستاي وهجر دحدو ذا عسرق أرحض هايستاي هندني ما هذا قبيل هو يوم البوحة هل كان كيون دقال كان يجين هبان اللوسيي هذه سلام لسالي يدور لي غوهاتا وأغوبة هودي النقال مدي هدي هذه من نوكيتو هرير بافي يوم لها آد لها والقلية مركي لودي هير ولا نوغدين هاجر بدنا مركي لودي هير ولا نوغدين هاجر بدنا هواكي يا عرورتا كعيو هوري نفتودي مركي هانا غقار لغو دفتاي إلك لغو هوي مركي هانا غقار لغو دفتاي إلك لغو هوي همت جابي هبلي مودي چيري إلي رغايستاني طبعا همت جابي هبلي مودي چيري إلي رغايستاني همت جابي هبلي مودي چيري إلي رغايستاني هرچوك يدن بطيو تلاقل يدن ليس لهلي واي كون هبل بميل تاغيو هاقيست ديدايو هذا ديو خلاف وحر آهين لغا مسوهين هاي الشيطان بالو هالقمي لونه هالقليل هباهور كيسعون ما يويو هالاستعبادي غفبنا هيرك وجوك سدا الله صندوناي وحنا هيبتا لغا سارا يا منطقي